Maalintii ugu horreysay oo Muuse arkay Jamiila, hore ayuu ka caashaqay. Xaflad aroos ah ayuu ku arkay. Waxay xirneyd saako oranjo ah oo ah kalarka uu dunida ugu jecel yahay. Balse markuu la hadlay oo nambarkeeda weydiiyey way ka diiday. Kama xumaanine oo waanba ka sii helay ayuu yidhi, maadaama ay tahay gabar sharaf leh oo cid walba aan afka la gelaynin. Muddo kadib ayuu haddana xaflad kale ku arkay. Nasiib wanaag way soo dhoweysay oo lambarada ayay kala qaateen. Sanad ayay sheekaysanayeen, kadibna reerkooda ayuu ka doonay, waana la siiyey, waana la isku meheriyey. Waxay maalintaa ii ahayd in dunida oo dhan la i siiyey ayuu yidhi Muuse. Muuse wuxuu ahaa arday marna jaamacad dhigto, marna dukaan uu leeyahay iibiyo. Sanadkii hore bishii afraad ayay ku ballameen inay aroos weyn dhigtaan, balse nasiib darro, arooska oo maalmo qura ka haray ayuu dagaal culus ka dhacay caasimadda Khartoum. Waa la kala qaxay, riyadoodii way burburtay. Dagaalka oo socda ayay go'aansadeen in xaflad yar oo xusuus ahaan aroos u noqota ay samaystaan, kadibna dhanka iyo Itoobiya ayay u soo qaxeen. Waxay ka mid yihiin 8 milyan oo qof ee ka barakacday dalka Suudaan ilaa inta uu dagaalka bilowday bishii afraad sanadkii 2023. Hadda waxay ku nool yihiin xerada qaxootiga ee Shekole ee ku taalla galbeedka Itoobiya. Muuse dukaan yar ayuu isla markiiba furtay si uu nolosha reerkiisa dib ugu dhiso. Waxay degan yihiin guri ka samaysan dhoobo iyo geedo. Jamiila derbiga guriga ayay ku sawirtay farshaxan calaamadda jacaylkooda ah. Waxaan farshaxanka ku xasuusanayaa jacaylka aan ninkayga u hayo, ayay tiri. Mustaqbalka waxay rajeynayaan inay helaan ubad wanaagsan iyo nolol farxad leh. Waxaan rajaynayaa in Eebbe dalkooda nabad uga dhigo si ay dib ugu noqdaan, riyadoodana u rumeeyaan ayuu leeyahay qoraha sheekadan, Mawlid Xujaale. Riyadooda Rabbi ha u rumeeyee. Daawada maxaa kaaga baxay sheekada lamaanahan? Muuqaalkan la wadaag asxaabta kale si ay uga faa'iidaystaan waxna ugu qaataan oo inoo sheer gareeya. Intaan sheeko la mid ah ku kulmayno, Nabadino.